أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. walaalkeena cabdirasaaq anigu ciidankiisaan ahay ma aha madaxdiisu ma ahan waa ragga dacwada iyo nashaadka faraha badan Nairobi iyo khaasatan Islii barigan masaajidka 6 aan maamuleyn waxaan isri warninkan asagoo dhalinyaro ah hadda waa wadaadada oday waa asagoo dhalinyaro ah wuxuu dhihi jiray war idinka wadaadada ahayn see masaajid u maamuleysaan mar waxaan ogaa uu yiri war nimankan idaaro masaajid ma qabsan karaan nimankan waa niman ma aragtay secularist masaajid say idaaradu Sheekh Abdinuur ka keenay oo ka soo qaaday loo naxariistay Muqdisho ka keenay maalin dhan baa la fadhi masaajidka 6 waxa laga dooday hal yajuuz in nimankan ay masaajidka idaaradiisa qaban karaan ama la yajuuz yani maalin dhan baa loo fadhi markii dambe culimadu waxay go'aan gaareen ragga masaajidka waa maamuli karaan banaanka mar marka khayr Allah si jazakallahu khayr asaga iyo ansaaru sunna iyo asxaabtiisi raga kulankan qaban qaabiyay runtii ilaahay baan u baryaynaa in ilaahay miisaanka xasanaadka ma aragtay ugu daro oo jannatul firdaws ka sii maxay yeelay kulankan waa kulan aad iyo aad u muhiim ah idinkana dadkii ka soo qayb galay saddexdii maalin hore oo ay socod maanta afar ku ah waan filayaa Soomaa maanta afar ku ah kulankana dhowr jeer baa la qabtay kana kii afraadaha tin Hargeysana way ku qabteen marka idinkana aad baad u mahadsantiin Soomaalida dadkii ka soo qayb galay maxay yeelay shir hadaad sameeyay oo fadhigan noocan ah oo culimadeena khayr Allah siiya laga keenay meel kasta caalamka laakiin dadkuuna ka soo qayb galaynin foolxuma ay ahaan lahayd Soomaalida shayga ugu wanaagsan aan ku jecelnahay waxa waa fadhiga culimada kuma ceebayaan way ka soo qayb galaan jazakallahu khayr marka culimadeena aad bay u mahadsan yihiin nagama daalaan wadaadka waa maqlaysaan wuxuu sheegay annaga waxaan sheeganay iyo waxaan nahay xogaa isma laha buu yiri waa kala fog yihiin laakiin maca dalik nagama daalaan maalin walba way nagu soo noqdaan wayna wacdiyaan marka arintaasna waa arin muhiim ah because ninka bani aadamka maanta oo dhan in wax loo sheega la wacyi geliya runtii wax bay u taraysaa haddiina la dhaafo la yiraahdo 10 sano kadib baa hal mar shirna idinku yeeraya ama hal muxaadaro la idin sameynaya runtii qalbiga waa madoobanaya dhagax buu noqon laakiin haddii maalin walba wixii aan YouTube ka helna wixii masaajidadan ka helna iyo muxaadaro noocan xaflad noocan kulan noocan hadii la sameeyo runtii waa inoo faa'iideysa anigu khaasatan Kenya kuma faanayna laakiin waan tagay gobolka Soomaalida ay degan tahay Ethiopia jijiga إلى جيبوتي إلى حمر لكن ميل رمتي سوماليدا دينا عدين تنشاط كي أقول بدنيهين ودذلك أقول بدنيهين نيروبي كفي عن أما كينيا كفي عن ملها مع ذلك بريان وحاد مودا دباتوين فربضن وايجرا والبضن واي كهلان مر والبا دتك دينتنا هذا يكون يرتهي دب كذا اللي هذا وادر كناد ودمد قار كاركتين ودمد قار ولا عليه عربته هل نبى ودن كوردن يعني دعودي iyo wixii la qabtay iyo diintii iyo dhaqankii oo dhan hal nin ba burburin kara marka hal nin oo jaahil ah oo diinta fahmaynin haduu madax u noqdo ama uu yani siba uu umada oo meel oo maaragtay madaxtinimada ama meel xeenkaas uu ka noqdo taasiir aad iyo aad u weyn buu gaarsiin karaa marka annaga laba saddex qodob baan rabaa inaan culimada badankood waan arkay joogan oo ku joogan iyo ku hadda inta joogaba inay dadka aad uga booriyaan Nairobi ama khaasatan Kenya arimaha sheekh hadda hadlay khayr Allah si uu ka hadlay muamalaadka khaasatan dhinaca ganacsiga dhibaatooyin fara badan baa ka jiraan khaasatan dhinaca ganacsiga heer waxaan gaarnay rag iska dhaaf hatta dumarka ay iskhiyaamiyaan oo khiyaano la isku sameeyo oo taqtiid la isku sameeyo oo liis afduuba oo booliis la isku yeerta oo gaalo la isku kirayst yani labadii hadda wax isku dirsadaan oo iskhiyaamiyaan marka dhibaatooyinka dhinaca ganacsiga runtii
waxyaabaha sheekhu sheegay taas waxaan u markaa inay baryahan ay si badan hays waxaan gaarnay heer deymihii ninka hadda baryahan dhibka hadda culimmada ay ka hadlaan mar walba Nairobi Kenya deymaha ka mid ah waxay nagu noqotay caadi waxaan maqli jirnay zamaani deyntu waxa la qaataa markuu dhib jira marka dib uu ku haysta baa deyn qaadan kartaa laakiin hadda waxaad moodaa caadi bay nagu noqotay ninka rab inuu mool ka dhista meel ama uu ganacsi weyn samaysta deyn buu qaadayaa deyntii ma bixinahay xoogaha dhibaato fara badan baa ka taal deyntana anaga sidaan u fahamnay waa marka uu dhib jira sababta la leeyahay yani markuu dhib jir ninka loo naxariisto waxa weeye shaygu waa markuu cariir oo ku jirto laakiin dhibaatooyinka deynta ku xiriiray iyo xumaantada ka dhalanaysa aad ay u badan haysaa waddankanna siyaasadii electionka loo socdaa waad la socotiin waqtiga electionka markii la gaaro dhibaatooyin fara badan baa jira ballamo waa la galayaa muslimiinta odayaasha siyaasiyiinta ganacsatada hatta qaar culimada la jirta ballamo baa la galayaa ballankii baa la qaadayaa lama fulinahay marka dhibaatooyinkaasna waa inaan runtii laga taxadira waa inay culimada inay had iyo jeer ku soo dirsadaan waa dhibna haysta hadda Soomaaliya waad aragteen hadda dhibka ka taagan labadan bari ilaahay ha u fududeeyo kullay maslaxa ilaahay in baan u baryaynaa inuu ilaahay maslaxa keena dhibaatada ka taagan cid kale nagu soo duulaysa malaha waa un annaga marka dhibaatada xagga siyaasadda runtii dadku waxay la fahamsiiyay inuu siyaasaddu ay diin ahayn waxaa lagu leeyahay markii qofku hadlayo wuxuu leeyahay war waxaan waa siyaasad diin ma aha ha naga dhigin maaragtay culayska naga daa oo siyaasadda ay diin ahayn maxay tahay siyaasaddu waa dhaqanka ay ka mid tahay islaamka marka waa inuu sharciga islaamka iyo nidaamka tartiibta islaamka lagu dhaqma dumar badan baa halka joogaan marka waxaan rabaa mawduuca dumarkana dhibaatooyin badan baa jira baryan wadaadka qaadiga Nairobi haddaad wareysato wuxuu ku leeyahay furitaanka Soomaalida dhalinyarta Soomaalida furitaanka wuxuu marayaa Kenya 60% waa 60% oo Soomaali kale muslimiinta kale aan ahayn marka maalin walbana gurbaan aroos baan lagu yeeraa waa tagaysaan laakiin bacda siniin waa la kala tagay sabar malaha dhalinyartii sabar male gabdhihii sabar malaha xoogaa culays baran baa jira marka in arrintaasna wax laga qabto runtii culimada maalin walba ay ka hadlaan ninkan dhalinyarta haddii مثلا ترانسفير لو قاده ليراد نيهو waxa shaqo ka qoraynaa Mombasa ama Kiambu shaqo laga siinaya gabadh waxay ku leedahay aniga Nairobi kama tagay hadaan tagaynaa aan kala tagno sheekadu waaba dhamaataba culaysna waa jira admaalino way darad last week nin baan arkay oo dhalinyaro shaqo yar haysta gurigiisu diyaarsaday Nairobi wixiisu dhan waa diyaarsaday marka waxa la yiraahdaa gabadha kaale marka notistan roos marka wuxuu islaha bal wadaadada u yar laba neef oo ariya bariis yar iska hagaajisa halagu nikaaxa gabadha soo kaxaysa waxa la yiraahdaa anaga gabadha ayna maxaad u malaynaysaa waa inaad xaflad oo nidaamka magaalada ka jir waa inaad ku socoto marka dhibaatooyinka dhinacaas runtii oo guurkana waa mar walba culimadu ay ka hadlaan social media anaga faa'iidadiisna waan garanaynaa dhibkiisu aan garanay laakiin waxaan kala aniga aan arkay dhibka hadda Nairobi bariyahan ka jira in xaflada music ama riwaayada ama ciyaaro lagu sameeynayo music bariyan inay Soomaalidu bilaabeen khaasatan meesha la yiraahdo Two Rivers Mall baa lagu dhigaa sanadka labaad way oo Soomaali kali fanaaniin Soomaali baa laga keenayaa Canada iyo Mareykanka iyo meel kasta iyo intaas oo maalin oo tumasho kali ah warnimada waxaas naga daaya waxa Nairobi ay ku cusban yihiin waxaan aad Nairobi ku keenay haysaan oo ciyaarahan aad keenaysaan fanaaniin iyo tumasho iyo dance iyo bilaayadan aad wadaana joojiya dhalinyarta iyo waxaan rag baa wada marka inaan joojino runtii waa laga fiican yahay wuxuu wadaadka sheegay waad maqlaysaan ilaahay nicmadiisi iyo barakadiisi waxa iimaanaysaa hadii diintan aan qabsan hadii laakiin laga yara leexda hadda Nairobi nicmadan waad aragteen ganacsiga nicmad baan ku haysanaa diinta nicmad baa lagu haystaa masaajidada meel kasta waa laga dhisay waa la buuxaa marka nicmadan iyo barakadu ilaahayna siinay yahow iyaanan iska halaynin waxaan iskaga halaynaynaa hadii waxyaabahaas hadda aan sheegnay lagu dhaqaaqa
marka aniga wadaadada kamid ma ihi wadaadki salaan un baan ugu imaaday cabdirasaaq khayr allah siiyo marka wuxuu yidhi adeer kaali salaam berigan siyaasadna kuma jiri marka kambayna uma socdi saasna ugu talagala laakiin wadaadda la jireen un baan wadaadadan un baan rabnaa inaan un maaragtay kobihi aan u qaadna aan u qad maaragtay qaadmaan u noqon marka jazaakumullahu khayr aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida wanaagsan oo kulankaad uga soo qayb gasheen ood culimmadeenna u soo dhoweyseen culimmadana khayr allah siiya mar walbaba waan garab taagannahay waxaan la qaban karna waddankan alxamdulilah xornimo diini baan haysanaa waana shay waaqica oo dastuurka Kenya ka mid ah axsaanna loo sameeyana ma aha laakiin we should not take it for granted waa mar walbaba in loo dagaalama oo maaragtay liska dhaciya ma arrin un dadaan rabin baa jira hadda dad hatta muslimiin oo shirarka noocan aan raalli ka helin baa jira laakiin alxamdulilah ilaahay baa maaragtay tala saaranayna annaga mar walba waxaan taagannahay waddanka haddaan ka mid nahay oon degannahay xaqaan ku leenahay in dastuurka waddanka siduu yahay lagu dhaqto marka dastuurkan waddanka xornimadan diinta uu nasinaya alxamdulilah marka diinta meel fiican baan maaragtay aan ka taagannahay marka dadaalka wadaadada waxayna dhaheen nimayahu aan ilaahay barina inaan fulinta de wixii aan aaminsannahay ictiqaadka iyo fulinta inaan iswaafajinna sidii wadaadada ay noo sheegeen jazaakumullahu khayr cabdirasaaq intaas ka badan salaantayda kama badnaanays